marka su'aasha isweydiinaysa waxa weeye marka aad qiimeynaysid ama analyze your audience baynu ka hadalnay marka aad qiimeynaysid audience-da fiiri inaad xogta diyaariso waxa ka horeysa inaad cidda wax u diyaarinaysid garanaysid haddaan anagu la hadlayo dhakhaatiir oo maybe aan bartay caafimaadka dhakhaatiirta qaabka wax ugu sharaxayo iyo maxaa yiraahdaa odayaal dhaqameed ama maxaa yiraahdaa bulsho ballaaran bulsho weyn doonaysa inaan barnaamij ka dhaadhiciyo qaabka wax ugu sharaxayo kala duwanaanaysa marka difference baa u dhaxaynaya marna eraya waxaan isticmaali karaa maartay adag marna waxaan isticmaali karaa kuwa fudud baa isticmaali karaa sababtoo aad u kala duwan tahay labada qolo marka midba midka kale wax u diyaarinaysa therefore marka si aynu hawshan u qabanno ama u qiimeysid maartay audience-gaaga su'aalahan saddexda ay isweydiinaysaa so waxay isweydiinaysaa what are their names titles backgrounds reasons for attending marka waxay isweydiinaysaa dadkan aad rabtid inaad maartay u qudbaysid maxay yihiin magacyadooda macnaha si aad hadalkan ugu quruxsatid hebel waan ku salaamayaa hebelna waa salaamaya hadalka maartay introduction lagu darsadaa sidoo waxa garatay waxa kale oo macnaha hadalka moogtahay dadku dhan wada aqrin kartaa laakiin dadka majorka aad aqrin kartaa oo maybe kulanku maartay mainka u quseeyo odayaasha ama hawshii dadkii maartay mas-uuliyiinta ah soo qaban qaabi maxaa la yiraahdaa marka waxaad kala ogaan kartaa taytaladooda maxay ka shaqeeyaan ma fahamta maybe qofkani waa dadkani waa dhakhaatiir dadkani waa bulshada rayidka oo kala duwan maybe waa shaqaale saxaafadeed maxay yihiin dadkani waxa kala ogaanaysaa maybe background-kooda xagee ka soo jeedaan maxay dad noocee ah weeye dadkani dad macnaha ilaa heerkee gaarsiisan weeye waxaad ogaanaysaa sidoo kale reason for attending oo ah sababta ku kalifaysa inay dadkani ka soo qayb galaan shirkan ama seminaarkan ama kulankan ama presentation kanada ay dhageystaan maxaa ku kalifay inta marka taqaanid waxa fududaanaysa in aad u fahantid audience-gaadii basically waxa kale oo ogaanaysaa what are the big concerns waa maxay waxyaabaha ugu waaweyn oo dadkani ay dareensan yihiin example waxaa jira waxa la yiraahdo maxaa la yiraahdaa aniga markaan meeshan imaanayo ama seminar aan barnaamij soo qayb galayo waxba iigu weyn marka maxaa aniga iigu weyn marka waxyaabahaas oo kale ayaad diyaarsanaysaa qiyaasaysaa maxaa la yiraahdaa si ogaanaysaa maxaa ugu dardaran oo aan si fiican u fahansanay wixii ayad hadhowna ma aqtay content aad soo diyaarinaysaa waxa kale oo kamid ah what are the objectives hot bottoms and attitudes marka maxaa la yiraahdaa meelaha lama taabtaanka ama kulul haddaad taabatid maybe ama xasaasigu aadka loo doonayo waa maxay maxaa la ujeedooyinkooda waa maxay shirkan uga soo qayb galeen waxyaabaha noocaas isweydiinaysaa dhaqanka dadkan waa dad noocee ah inahaas markaad ogaatid waxaa kuu fududaanaysa automatically in aad ma aragtay idankii aad fahantay dadkii aad wax u diyaarinaysa inaad fahantay waxaa kaloo ku jira what is their perception of you and your institution adigii wax u gudbinaya dadkan maxay ka aaminsan yihiin ama shirkadda aad matalaysid organization-ka aad matalaysid waxba maxay dadkani ka aaminsan yihiin wax ka ogaatid what are their questions likely to be su'aalahoodu maxay noqon karaan markaana jawaab usii diyaarinaysaa dadkaa waxyaabaha ku weydiin karaan maybe dad baa waxaa tiri waxaa idinka rabaa barnaamij waxaa idin hayaa lacag fiican aad ka helaysaan oo intaas marka maxay ba ku weydiin karaan example waxyaabaha ku weydiin karaan dhan baad sii diyaarsanaysaa jawaabahooda waxaa kaloo fiirisa what is personally at stake for them waxyaabaha ugu waaweyn oo ayaga mainka waa maxay how much details do they need details ama faahfaahin intee leeg u baahan yihiin marka based on qaybtii hore aynu soo sharaxnay dadkii markaad fahantid waxaa kuu fududaanaya waxyaabaha qaybtoodna inaad si guud u sharaxdid sababtaa already way garanayaan waxyaabaha qaybtoodna aad ka tagtid ayay noqonaysaa insha allah waxaan rajaynayaa inaan qaybta markanu fahamnay marka audience-gii inaad fahantay iyo maaragtay qaabkii audience-gaada loo analyze garan lahaa marka audience-gaada garatid waxaa kuu fududaanaya inaad fariin qusaysa oo ku saxan iyaga aad u soo diyaarisid laakiin haddaad meesha iska soo istaagtid oo aad wuxun iska bilowdid oo ay ku dhahaan annagu waxaa maananba soo dhigan wax u dhow mana fahmayna ereyada noo sheegaysa macnaha dhibaato intee leeg ayay ku geysan kartaa intaas ayaynu kusoo koobayna casharkeennan qaybta xigta ayaan ogolanaa. Assalaamu calaykum.